السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan naga daawanaysaan ajmal service dhammaan asxaabtii ugu xiran kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub. taariikhda muuqaalkan aan sameynayo waa bisha shanaad aakhirkeeda 2023. Allah hadduu qadaro waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa dhul ku yaala Daar es Salaam oo aan idin oran karo dee waa fursad ama jaanis aad u weyn boqolkiiba boqol haddii aan dhahana aan ku dambaabaynin meeshuu ku yaalo warbixintiisa waxaasoo dhan markaa aragtaan. horta magaalada waa taa idin muuqata waxaa arkaysaan waa Daar es Salaam guryaheedii waa taaganahay waliba daroon ma ahan wax kalena kuma duubin anigoo taagana duubay marka hore zoom ma dhihin laakiin hadda zoom aan soo iri wadooyinkan waa jaay jidkan hadda meeshaan iskuuska ah oo idin muuqata laamigu cala dul ugu dhaca wadadaas ma leexleexato waxaa ku yaala meeshaan masaajid iyo xaafado waxay leedahay biyo iyo koronto iyo wax walba jidad jaayaha baxsan waa aragtaan jidadkoodu way baxsan yihiin masaajida ku yaalo kuryana way ku yaalaan oo waa la degan yahay masaajidkan booska afaraad jaaygan markii laga soo tago booska afaraad ee dhinaca masaajidka ah waxaa ku jira hal boos oo iib ah booskan waxaan idin siin doonaa warbixintiisa oo dhan dhagaxdan uu ka dambeeyaa geedkaas uu ku aadan yahay geedkaas meesha hadda oodaa ku xiran oo maanan kor teginin laakiin dhul ahaanna waa dhul dalcad ah oo qurxan oo siman wuxuuna ka yahay jaayga booska shanaad 4 boosaa jaayga ka xigto wadada jaayga ah ee masaajidku uu saaran yahay 4 boos kaliya ka xigto booska shanaad uu noqonaya Daar es Salaam deegaankeedana waa deegaanka hadda kor ah ka arkayseen dhinacan ama kadigan hadda aan joogno waa kadiga qorax u dhac ee Daar es Salaam labada dhinac qorax ka soo baxay qorax u dhac wuxuu deegaanka ku socdaa baa la oran karaa labadoodaba deegaanka uu ku socdaa oo way dhismayaan laakiin xoogaa waxaa aad u sii badan dhankan qorax u dhac deegaankiisa aafiday ilaa xad marka geedkaas uu ku aadan yahay booska meeshuu ku yaalo waa boos hal jidla ah jaygana ka noqonaya booska shanaad cabirkiisa waa 20 lagu dhufto 15 wuxuu ku yaalaa Daar es Salaam kadiga qorax u dhac ee Daar es Salaam laamiga wuxuu u jiraa dhulkan ama booskan laamiga wuxuu u jiraa 1 kiiloomitir iyo 800 ama 900 meelaha inuu laba noqdana waa laga yaabaa laakiin wado toosa oo laamiga ka soo leexata baa masaajidka imaado wadadan ma leexleexato wadada ma aanan idiin soo duubinin sababtoo muuqaalka aad u sii dheeraan lahaa oo waxaan rabaa inaan boos kalena idiin sharaxo oo asaga ka yara qiimo jaban kana aan idiin sharaxo saadaradeed kiiloomitirka waan soo saaray deegaankan hadda waaba aragtaanba waxa aad arkaysaan waa guryihii Daar es Salaam kaliya koofkan hadda aad taaganaha waa dalcad koofka ku dhegan wuxuu yahay koof god ah adinka laftiina waa arki kartaan inuu dhulka magaalada ahna uu dalcad yahay dhulkan dhaxana uu xoogaa god yahay booskan hadda dhinaca masaajidka xigo oo aan idiin sharaxay qiimaha lagu rabo waa 18,500 dollar waa 18,500 dollar magaaladana waa taa idiin muuqata goofahan dhexe baa god ah koofkan aan joogno iyo magaalada wixii kan ku xiga ka dambeeyo waa dalcad waana taasaa magaaladii oo dhan si waadaxa u arki kartaan ayadoo waxba daroon u baahnayn si kalena aan loo duubaynin booskan waa 18,500 dollar okay jaayga hadda aniga aad taaganahay dhinaciisa kale masaajidka dhinacuu saaran yahay maahana dhanka kale asagana waxaa ku jira boos dhul ahaantiisa dhul siman oo dalcada ah waxba isma dhaamaan dhulkan booska hore idiin sharaxay iyo kan hadda aan idiin sharaxi rabo waxba isma dhaamaan laakiin way kala qiimo jaban yihiin booska kale meeshaan uu ku jiraa dhulkan hadda aad arkaysiin uu ku jiraa jaaygan wuxuu ka noqonaa dhinaca masaajidka kii hore xigo idiin sharaxaye kan kalena wuxuu xigaa masaajidka maahan kadiga kaleeto aan hadda kaamirada idinkugu qabtay asagana cabir ahaan waa 20 lagu dhufto 15 waa dukumiinti nadiifa iyo dhul taagan oo qurux badan oo nadiifa booskan dambaana qiimo jaban asagana wuxuu jaayga ka noqonaa booska shanaad meeshay ku yaalaan labada kadib ay kala xigaan laakiin waa isku mid wax farqiyo weyn uma dhaxeeyo labada kadib un bay kala xigaan asagana waxaa lagu rabaa 16,500 dollar qiimahan idiin sheegay ka hadal ma laha haddii la hadli karo oo qiimo la dhimi karo anaa hore u soo hadlay qiimaha aakhir buu maraya
meesha ugu dambeysay buu marayaa ha u qaadanina cala duul markaa boosaska ka soo baxday inaad guryaha soo galaysid muuqaalka wuu kala go-ay waxaa diidanaha inaad ka fahantaan muuqaalka markaan goofka kasoo tegay baan xaafadaha muuqaalka ku xiga uu noqday muuqaalka markuu xiriir yahay oo aanan kala jarin waan idiin sheegayaa markaa kala jarana waan idiin sheegayaa si qalad uusan u dhicinin faham qaldan inaan adinka u qaadanin anigana aanan noqonin qof wax qaldan gudbiyey almuhim dhulkan laamiga wuxuu u jiraa 2 kilomitir wax ka yar 2 kilomitir wax ka yar uu laamiga u jiraa deegaankan waxaa la dhihi karaa guryaha ugu soo sokeeya wuxuu u jiraa 700 ilaa 800 oo mitir ama tilaabo sidoo kale waa dhul dalcad ah midda kale deegaan caadi ah meesha ka aas-aasmaayo sababtoo ah korontadina way leedahay biyihina way leedahay marka deegaankaas aas-aasmaayo wadooyinkiisana la bixiyey oo jaayada leh baan ugu talagalay inuu qof walbo jeebkiisa wixii uu awoodo uga faa'iideysto midna waa 16,500 midna waa 18,500 dadka aan isku qiimo wax ku wada rabinin ee labadoodaba saasay jaanis ku yihiin kan 18,500 ahna waa fursad oo qiimahaas wax ka badan oo dhulka gaaray kan 16,500 ana waaba ilkaha ku qaado waxaan marka rabaa inaan idinkugu sii sharaxo halkan dadka muuqaaladan aan usoo bandhigayo oo aan u dadaalayo oo aan dhulka u raadinayo waa adinka waa ama maqnaaw ama joog ama dadka qurbaha jooga ama dadka wadanka jooga waxaan idinka codsanayaa amaba aan idiin sheegay oo aan idinka aqbali doonin in aad dalaal soo dirtaan dalaalka aad soo dirsanayso dhulka asaga uu haayo ka iibso anaha ii soo dirin ma la shaqeynayo dalaal qofkii dalaal oo asaga inta dhul keensado dhul raba in lala gado ama loo gado waa diyaar waa loo iibina laakiin shaqo aniga aa qabtay dalaal liigu soo diro ma aqbalay hadda idiin sheegaa waxaa lu gooyo ahna kama istafiideysaan dhulkii adiga aa rabtayna wuu ku dhaafinayaa annagana luqaafo nagu noqonaya marka qof walbo waa micnaha adigoo dukaan haysatid biyo caafiya oo ii soo dirsatay nin biyo caafiya wata dalaalku haddii adiga midaad taqaanidoo ku kalsoontaha uu yahay dhul u dirso dhulka uu kuu keeno qaado anigii adigana isma naqaano asaga iyo anigana isma naqaano laakiin dhulka aniga aan soo bandhigo dadka aan u shaqaynayo dhulalka aan u keenayo waa dadka aniga igu xiran ee taabaceeya ee igu xiran dhinac walba miidiyaha iga xiran dadkaabaan anigu adeegaaho adeegto u ahay ayaga marka waxaan ka rabaa in qofkii dhul rabo dhulka aniga aan soo bandhiga ku qanco inuu aniga iga iibsado qofkii aanan rabininna dee maba rababa laakiin qofkii dhulka aniga aan soo dhiga ku qanca haddana dalaal ii soo diro wuxuu ogaanaa inaanan shaqada aanan u qabanaynin waxa weeyaan wax badan waa isku dayay inaan xoogaa aan idinka dadadbo idinka qarqariyo laakiin waa fahmi weydeen waa inaad daaragta idinkugu sheego saanan isugu dhicin laamigii baan imaanay dhulkan marka laamigana wuxuu u jiraa 2 kilomitir wax ka yar waana deegaan oo biyihii korontadu waa leeyahay wadooyin jaaya waa u dhow yahay daarusalaam ku yaalaa ka faa'iideysa haboon in badan oo idin kamida mar walba waxay oranayeen waxaan rabnaa dhul fursad ah oo lacag yar waxaan rabnaa dhulku inuu 20,000 ka hooseeyo deegaan yahay kolley kan waa idin soo maray inuu sii joogi doonaan allahu aclam ka faa'iideysa haboon